maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii 12aad 2019 sharafay noo tahay inaan xafladan ciidankii biliiskii koonfur galbeed ee gobolka Shabeellada Hoose loogu xiraayay tababarka aan ka soo qayb galno aanan tababarkii u xirno annagoo markii hore tababarka loo furaayay nasiib wanaag ilaahay uu nasiib nooga dhigay inaan tababarkooda furno sharaf weyn ay noo tahay waxaan rabaa inaan ciidanka iraaha hambaliyo mar labaad hambaliyo runtii nasiib badan baa leedihiin waqti baa la soo geliyay dawlad baa hesheen kaalmo caalami ah hesheen tababar fiican baa hesheen wax aysan ciidamada ka horreeyay biliiska ahaa oo Soomaaliyeed oo dawlad goboleedyada iyo deegaanada loo tababarayay aysan helin yaad hesheen oo nasiib u hesheen oo maxay tahay in linku tababaro akademiyada biliiska General Kaahiye oo dalkiina ku tababarataan tababarkii biliiska la siinayay tababar ka badan ah heshaan oo linku daro 2 bilood oo kale adinkoo lagu xisaabtamayo deegaanada u socotaan iyo daruufaha ka jiro linku daro 2 bilood oo kale oo tababara oo u shaqeynayo kumaandoosnimo iyo adeeg ciidamada oo dhan la dhameystiro marka taas aan nasiib wanaag ah waana waxaad nasiib u hesheen weeyaan waxaan rabnaa marka waa ogtihiin deegaanada ay ka timaadeen iyo dalkii ay ka timaadeen oo la idin soo tababaray iyo waxa la idinka sugaay waxa la idinka sugaaya dadkii iga horreeyay inta joogay oo dhan wixii ay ka hadlaayeen oo ay sheegayeen oo ah in wixii la idin soo tababaray iyo tababarkii la soo siiyay inaad deegaankiini iyo dadkiini iyo shacabkiini ay kula noqotaan aadna si siman oo dadka dhan ay u wada dhan yihiin aad u ilaalisaan xuquuqda shacabkaas iyo deegaanadaas aad degantiin aadna u ilaalisaan cadawga iyo masiibadan ku habsatay deegaanada Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose ciidankii dufcadii ugu horeysay baa tii waa aaminsanahay in baahidii idin keenay oo meesha taalay aad dabooli doontaan waxa ay muuqato rajo fiican sababtoo ah intii yarta ayadoo ka arkay yaa igu filan maalinkii idin keenayay maanta isku mid ma tihiin tababarka qaadateen baa yaa nagu filan way aragnimada qaadateen baa nagu filan aqoontii idin siiyay baa ku filan waxaan rabnaa marka inta ayada ahayd oo dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha kale oo kaalmeynayay ay ka shaqeeyeen inaad deegaanadiina kula noqotaan annagana haddii Ilaahay raaho waxaan idin dhameystiri doonaa agabkii ciidanka biliiska uu lahaa saldhigyadii xuquuqdii mushaarka ahayd qalabkii ciidan oo dhan kulli gacantiina la soo gelin doonaa haddii Ilaahay raaho adinkana waxaa la idinka rabaa inaad mas'uuliyadda sidoo kale u diyataan runtii tababarkan wuxuu ahaa tababar aad u qiimo badan annagana aad farxad loo gelinayo waana la inkaga dambeyn doonaa insha Allah laakiin waxaa tihiin dufcadii ugu horeysay ee gobolka Shabeellada Hoose loo tababaro deegaanada la idin tababaray yaana la idin qaybin doonaa insha Allah waxaana jecelahay haddii Ilaahay yiraaho inay dufcad labaad iyo dufcad saddexaad iyo mid afaraad ay jiri doonto oo deegaanka soo sheegay xildhibaanku waa weyn yahay waa 8 degmo dhulkana waa ballaaran yahay deegaanadaas kalena la geyn doono ciidan biliis oo ku filan waxaan rabnaa marka haddii Ilaahay yiraaho si la inkugu daydo oo loogu farxo oo dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada oo adinkoo kala ah oo nasiibka aad heshay wali aanan helin ayagana ay nasiibkaas oo kale u helaan inaad muujisaan shaqo wanaag inaad muujisaan cadaalad inaad muujisaan wada shaqayn fiican oo aad la yeelataan bulshada iyo shacabka aad biliiska u tihiin oo deegaanada ay ka soo jeedeen inaad kaalmeysaan dadka Soomaaliyeed oo aad la shaqaynaysaan oo shacabka ah inaad la shaqaysaan maamulada deegaanada aad joogtaan ka shaqaynayo oo maamulka u dhisan deegaanadaas oo aad kula shaqaysaan wixii la idin soo baray wixii la idinku tababaray iyo sharciyada biliiska oo soo barateen noocyadooda kala duwan oo dhan
oo amniga ku saabsan oo baarista dambiyada ku saabsan oo ceerka ciqaabta ku saabsan intaba inaad maxay ahayd si xaqabtiran aad uga shaqaysaan baan jecelnahay insha allahu ciidanka waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo intii aad tababarka ku jirteen waxaan la xiriireynay saraakiisha booliiska Soomaaliyeed iyo taliyaalka dugsiga akadeemiyada runtii waxay sheegeen ciidamadina soo maray ciidanka ugu fiicnaa oo ahaa akhlaaqda tababarka dulqaadka samirka annagana sharafay noo tahay in la yiraahdo ciidanka aad keenteen ciidanka ugu fiicnaa oo arin kale waa aad ugu mahadsantahay waxaan rabnaa marka akhlaaqdii iyo sharaftii iyo wanaagii iyo aad horay u lahaydeen iyo tababarkii in kugu daray intaba inaad deegaanadii kula noqotaan oo wax badan la ka faa'iidi doono marka dambana aad macallimiin noqon doontaan adinkaba insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo runtii waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska iyo saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo waqti badan geliyay tababarka ciidamadan dulqaad badan u sameeyay aqoontoodana si dhammaystiran u geliyay baan rabaa inaan inta uga mahad celiyo waxaan kaloo rabaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan inta uga mahad celiyo hay'adihii ka qayb qaatay oo international community-ga oo hay'adaha amniga naga kaalmeeya ayagana waqtigii iyo dhaqaalihii ay geliyeen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa kale inaan u mahad celiyo macallimiintii sida goonida u tababartay ciidankan oo tababarka fiican siisay ayagana aad u mahadsan yihiin ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan inta tacsi ka diro aan tacsi uga diro shacabkii Soomaaliyeed oo sida xaq darrada ah shalay ay nimankii cadowga ahaa ay u xasuuqeen runtii nama cabsi gelin doonto mana waxay noqonaysaa dadka Soomaaliyeed waxay ogaanayaan cadowtinimada ay u qabaan shabaab shacabka Soomaaliyeed dadka meesha lagu laayay dad shacab oo daruuf adag ku nool oo u soo kalahay noloshooda say ku maareyn lahaayeen oo u soo kalahay say waxbarasho u heli lahaayeen oo u soo kalahay sidii maanta nolol maalmeedka ay ku heli lahaayeen dadka u baahnaa bay ahayn in la kaalmeeyo oo la garab qabto marka way muuqataa cadownimada iyo nacaybka ay u qabaan ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxyaalaha aan hadda ka shaqeynay ka mid tahay in ummaddaas laga qabto iyo tababaradaan iyo ciidankan adinkana qayb ka noqon doontaan in hadduu Ilaahay yiraahdo cadow dambe oo shabeellada hoose ka soo baxay inuusan meel dambe gaarin shabeellada hoosena uusan dhibaateyn dadkii dhaawac ahaa Ilaahay ha caafiyo intii dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto dadkii ehelka ahaa oo dadkaas ehelku ahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan samir iyo iimaan Allah ka siiyo